bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka kuwada ugu waaweyn ee aan idin hayna maanta waxaa ka mid ah gudoomiyihii gobolka Mudug iyo ilaaladiisa oo ku dhintay qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qarax ka dhacay gobolka Mudug xogayaha guud ee qaramada midoobay oo si adag uga hadlay xaaladda xilligan ka taagan gobolka Gado baarlamaanka galmudug oo ansixiyay golaha wasiirada ee maamulka galmudug amisom oo shaacisay in ay dishay xubno al-shabaab ah kuwa kalena ay nolosha ku qabatay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo wajahaya xilligan inuu xilkiisa waayo safiirka Shiinaha u fadhiya Israa'iil oo isagoo meyd laga dhaxlay gurigiisa qodobadaas ayaad ku maqli doontaan warkeena fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe sar channelkan share like saaxiibadan la wadaag mahadsanidin aan ku bilowno qodobka ugu horeeya qarax ismidaamina ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana la sheegay in qaraxaas lagu dilay gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur qaraxan oo sidoo kale ay ku dhinteen saddex ka mid ah ilaaladiisa gudoomiyaha ayaa waxa uu ka dhacay xarunta gobolka horteeda sida ay warbaahinta u sheegeen taliyaha qaybta booliiska Muumin Cabdi goobjoogiyaal ayaa sheegay in qofka isqarxiyay uu watay bajaaj walxaha qarxa lagu soo buuxiyay al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxa dhanka kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka tacsiyay geerida gudoomiyaha waxa uu cambaarey faralka argagixisada ay lagu dilay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Puntland sida uu hadalka u dhigay qofka isqarxiyay ayaa bishii Maarso dabayaaqadii ku dilay magaalada Garowe gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi warkeena ayaad wali daawanaysaan daawadayaal markana gudoonka golaha wakiilada ee Puntland ayaa shaaciyay in kalfadhiga 46aad ee golaha soo furmi doono 15 bisha soo socotay June iyadoo lagu wargeliyay dhammaan xubnaha baarlamaanka gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa sidoo kale xildhibaanada la wadaagay ajandayaasha ugu weyn ee kalfadhiga 46aad kuwaas oo ku jiraan qodobo la mid ah kuwa xilka uu ku waayay gudoomiyihii ka horeeyay Cabdikariin Dhobadaareed oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani wali waxa daawanaysaan warkeennii markana war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada amisom ayaa waxaa looga hadlay isla markaana faahfaahin looga bixiyay dagaalkii ka dhacay deegaanka Bilis Qooqane ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii al-shabaab ay dhowr jiho ka weerareen saldhig ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin halkaasi qoraalka amisom ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamadu ku sugan Bilis Qooqane ay joojiyeen weerarkaas isla markaana khasaaro culus ay gaarsiiyeen al-shabaab amisom ayaa war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in dagaalkaas ay ku dishay saddex xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwa kalena ay nolosha ku qabteen sidoo kale waxay shaacisay in qoryo AK-47 ah iyo rasaas fara badan ay ka furteen dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka soo qaaday sida ay hadalka u dhigeen ugu dambeyn taliska guud ee howlgalka amisom ayaa ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalkooda ku ammaanay sida ay ugu hortageen weerarkaas oo talisku sheegay inay ku dhaawacmeen oo kaliya laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland warkeena ayaad wali daawanaysaan daawadayaal markana xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Gado xilligan ka jirta waxa uu sheegay inuu si aad u cambaareynayo dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolkaasi ee u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo maamulka Jubbaland Antonio Guterres ayaa sheegay in ciidanka ay dawladda Soomaaliya bishii Febraayo ay geysay gobolka Gado ay sababtay isku dhacyo xiisado dagaal hor leh sidoo kale waxa uu tilmaamay in dagaaladii ugu dambeeyay ee dhexmaray labada ciidan ay waxyeello ka soo gaartay dad badan oo shacab ah kuwa kalena ay ku barakaceen waxaana aad u walaacsanahay isku dhacyada hubeysan ee ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya ee ka dhacay gobolka Gado kuwaas oo sababay khasaaraha iyo barakaca dad badan oo shacab ah ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wuxuu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo xiisada xilligan ka taagan gobolka Gado
markana baarlamaanka maamulka galmudug ayaa maanta waxa ay ansixiyeen xubnaha golaha wasiirada ee maamulka galmudug oo dhawaan magacaabay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor fadhi ay maanta yeesheen xildhibaanada ayaa waxa uu madaxweynaha maamulka galmudug uu ku horgeeyay xubnaha golaha wasiiradiisa cusub fadhiga ayaa waxa la sheegay in xildhibaanada ay ku ansixiyeen ay tiradoodu gaarayso 78 xubnood iyadoona sidoo kale la soo wariyay in ay dhammaantood xildhibaanadu ay sheegeen inay taageersan yihiin xubnaha cusub ee uu magacaabay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor dhanka kale Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu aad u soo dhaweynayo ansixinta ay ku meelmariyeen baarlamaanka maamulka galmudug golaha wasiirada cusub ee dhawaan uu magacaabay ugu dambeyntiina warka dibadda haddii aan eegno warbaahinta Israa'iil ayaa warinaysa in gurigiisa laga helay isagoo meeyda safiirka Shiinaha u fadhiya magaalada Tel Aviv mana jirto sabab la og yahay oo ka dambeysay dhimashadiisii horaantii sanadkan ay ahayd markii safiirka la magacaabay wuxuuna ka soo shaqeeyay wadanka Ukraine ka hor inta aan la geyn Israa'iil safiirka oo da'diisa lagu sheegay 50 sano jir ayaa meedkiisa laga helay sariirtiisa iyadoo booliisku ay durbo bilaabeen baaritaano arrintan la xiriira waxaana jirta in ilwareejo caafimaad ay mid ka mid ah telefishinada Israa'iil u sheegeen inuu mas'uulkan geeriyooday isagoo hurdaya shaki badan ay dhalin kartaa dhimashadiisa maadaama la og yahay inuu si cad u dhaleeciyay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo Shiinaha ku weeraray qaabka uu la tacaashay fayraska dunida dhibaatada faraha badan ku haya ee coronavirus safaaradu mas'uulka ka ahaa ayaa dhaleecisay hadalka ka soo yeeray Mike waxaana lagu daabacay wargeyska Journalism Post qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena aad ka daawanayseen xog waran show fadlan hadaad nagu cusub tahay channelka subscribe share like share comment saaxiibada la wadaag mahadsanidin dhamaantiinba